بسم الله الحمد لله رب العالمين maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena 15aad ee ku saabsan pharmacology-ga waxaan ku soo jirnay penicillin-iska uses-kooda ayaan soo qaadanay waxyaabaha loo isticmaalo penicillin-iska ayaan soo aragnay hadda waxaan qaadanaynaa contraindication wax loo yaqaan waxyaalaha side effect-iga iyo contraindication aan barnaa contraindication waxa la yiraahdaa waxyaalaha lidka ku ah qofkan hadduu qabo aan la sii karin waxyaalaha penicillin-iska tusaale waxaan ka mid ahay hypersensitivity to penicillin hadii la ogyahay qofkan inuu xasaasiyad ku qabo penicillin lama sii karo iyo cephalosporin labadooda lama sii karo hadii la ogyahay penicillin uu ku qabo cephalosporin lama sii karo side effect-iga waxa la yiraahdaa saameynta yar oo aan side ku badnayn allergy ayaa ka mid ah skin rashes inay nabro ka soo raliso maqaarka brutus ayaa ka mid ah nabro inay ka soo baxaan oo kala oo kuskuusan waxyaalo yar oo nabro bocool camal ah wheezing ayaa ka mid ah fever qandha ayaa ka mid ah wheezing marka wuxuu yahay inay qofkii xasaasiyad markuu soo wato kala kabacdi sababadii kale inay xogaa xirmaan markaas uu quuriyo fiberka ayaa ka mid ah qandha inay keento diarrhea shuban ay keeni kartaa abdominal cramps calool majiir ay keenta macluush qofkii xanuunta pain nausea ay keeni kartaa vomit oo la labo vomiting iyo matag sidoo membrane colitis ay keeni kartaa kala caloosha inay xogaa soo bararto ama biyo ay galaan oo kala ama ay keento waxay keeni kartaa thrombocytopenia wax loo yaqaano in hoos u dhacaan oo kala plateletski levelkooda inuu hoos u dhaco leukopenia oo kala dhawiyuusiga inay hoos u dhacaan oo kala keeni kartaa waxyaalahaas oo dhan ay keenaan dhibaato badan leeyihiin sidoo kale thrombophlebitis wax la yiraahdo ay keeni kartaa oo inuu infection ku dhaco plateletska ama unugyada loo yaqaano ku dhiig xinjireeya electrolytes imbalance waxay keeni kartaa in electrolyteski macdanta jirka ku jirta aysan isku dheelitirnin oo isku qasanto IV infusion hadii laga siiyo qofka xididka kala hypertoxicity keeni kartaa in beerka ay sun ku noqoto kala ama ay dhibaato u geysato IM injection markii laga siiyo waxa may cause pain waxay keeni kartaa xanuun other injection site meesha laga duro ay ku keeni kartaa xanuun oo badanaa absorption-keeda dhib badan MB marka waxa lagu yiri tusaalaad ay dhacaan waxaan kala waxa loo baahan yahay epinephrine corticosteroid iyo oxygen iyo antihistamine waxyaalahaas waxyaalaha loogu talagalay emergency treatment for allergic includes hadii ay keento kala daawooyinkan ayaa lagu caabiyaa oo la siiyaa oo loo baahan yahay in qofka la siiyo si looga baabi'iyo waxyaalaha iyada ay keentay dosage individualized marka qiyaasta laga siiyo shakhsiga ama qofka general nursing marka laga hadlayo dadka daawada bixiya concentration for penicillin waxa la rabaa inay concentration ama ay saaraan maskaxdooda ama ay macna xooga saaraan penicillinka this antibiotic waxa la daawadan qalajiya should be injected slowly waa in si degan loo duraa to minimize localized irritation si loo yareeyo local irritation inay ku sababto meelaha meesha laga duraayo kala inay cuncun xasaasiyad ku keento kala si loo yareeyo waa in qofka si loo duraa si degan IM injection markay taa mur laga siinayo kara amed deep waa in hoos la geeyo oo macnaha muruqa waliba la geeyo inda glandular muscles muruqaha qaybta hoose loo gudbiyo assess regularly for allergic reactions in mar walba la socdo waa inay keenayso xasaasiyad if reaction occurs hadii ay marka xasaasiyad timaado drug must be discontinued immediately waa in laga joojiyo si degdeg ah epinephrine la siiyo oxygen oo kala antihistamine iyo waxyaalahaas lagu daaweeyo aan corticosteroids oo kala kamid ah must be immediately available waa in la heli karaa daawooyinkan midkoodna la siiyo lambar 4 waxa la yiri keep client waxa ilaalisaa qofka macaamiisha ku imaanayo kala who receives penicillin ka soo qaatay penicillin in outpatient clinics oo bukaan socod to stay in the clinic for the least 20 minutes taana qofka ku yimid penicillin banaanka laga soo qoro kala duraysid marka daawo markaas 20 daqiiqo inuu meesha jooga si xasaasiyada ku soo waysa adoo ogaatay hadii kale do not administrate a long acting type maxsiinin macnaha waqti dheer oo kala xididka ka siinin they are only for arm use badan ayada waxa laga isticmaalaa muruqa don't massage after injecting because marka qofka siisid meesha ha riixin oo burburinin for absorption should not be increased si oo macnaha absorption-ka uu soo badanin lama rabo absorption oo degdeg ku noqdo take oral penicillin badan ayaan laga qaataa penicillin-ka afka 1 hour before or 2 or 3 hours after meals cuntada 2 saacadood ka bacdi in la siiyo ama 1 saac ka hor cuntada in la siiyo ay ku fiican tahay complete entire prescribed course of therapy waxa muhiim ah iyadoo loo baahan yahay prescription-kii course lagu soo qoray ama kuurada lagu soo qoray qofka inuu dhameystiro ayadana waxay kamid tahay waxyaalaha muhiimka laga maarmaanka waxaan galeynaa penicillin qayb kamid ah loo yaqaan ampicillin strain name wuxuu ku iman karaa
benbetrin ama wuxuu ka imaan karaa glasskiisina wuxuu kamid yahay antibiotic penicillin ayuu kamid yahay waxaa ogaataa lagu yiri destroyed penicillin lactase enzymes badanaa waxay ku sameeyaan shaqadiisu yahay lactase enzyme inuu sameeyo uu burburiyo enzymekaas boqolkiiba 60 ilaa 30 ilaa 60 absorb from GIT asaga waxaa lagu soo nuugaa GIT-ga after oral use markaad afka isticmaasho ka bacdi acid resistant maadada acidkan wuxuu ku yahay mid iska caafiya broad spectrum antibiotic waa maadooyinka ugu waaweyn macnaha loo isticmaalo qalajiyaasha ahaan use waxaa loo isticmaalaa in particularly recommended in respiratory badanaa waxaa la amraa ama la siiyaa respiratory-ga in loo isticmaalaa biska neef mareenka urinary oo biska kaadi mareenka ama infectionka ku dhaca keliyaha kaadi mareenka GIT ama waxa loo yaqaan gastrointestinal tract infections oo loo isticmaalaa and other infections due to the ampicillin iyo ampicillin infectionada kale oo ay keentay ampicillin sensitivity organisms waxyaalaha ampicillinka sensitive ku ah oo daaweyn karo dhan noolaha ah ama bacteriyada ampicillinka wax ka qaban karo dhan waxyaalaha ay sababeen oo dhan ayaa lagu daaweyn karaa qaybtan 15aad ee casharkeena maanta halkaas inoo weegyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh